Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waxaynu fiirinaynaa liiska 10 qof ee dhaqaalaha ugu badan ka helay YouTube sanadka 2021. Jimmy Donaldson, 23 jir Mareykan ah oo si aad ah loogu yaqaano MrBeast, ayaa noqday qofka ugu dakhliga badan YouTube 2021 sidii laga soo xigtay warbaahinta Forbes. Muuqaalada uu soo saaro waxaa daawatay in ka badan 10 bilyan oo qof, wuxuuna ka helay $54 milyan. Waxa uu dhaafay 10 sano jirka lagu magacaabo Ryan Kaji, kaas oo ku jiray kaalinta koowaad liiska sanadlaha ah labadii sano ee la soo dhaafay. Si wada jir ah, 10 qof ee lacagta ugu badan ka helay YouTube-ka sanadka 2021 ayaa sameeyay isku darka $300 milyan. Majalada Mareykanka ayaa qiyaastay tirada wadarta lacagtan. Jack Paul ayaa ku jiray kaalinta labaad isagoo ka soo muuqday 10 sare tan iyo 2018. Sidoo kale walaalkiis Logan ayaa liiska 10 sare ku soo laabtay kadib markii uu ka maqnaa tan iyo 2017. Ciyaartooyga Nathan Graham oo loo yaqaan Unspeakable ayaa liiska markii ugu horeysay ku jira kaalinta shanaad. Stockle Walker oo ah khabiir dhanka isbedelada YouTube-ka ayaa yiri liiska sanadkan waa mid xiiso leh sababtoo ah waxay muujinaysaa sida uu u fadhiistay YouTube-ka ama uu u noqday mid aad u sareeya. Dadka ka helay YouTube-ka lacagaha ugu badan sida ay tilmaamtay warbaahinta Forbes ma ahan kaliya kuwa loogu daawashada badan yahay, laakiin waa kuwa awooday inay si guul lacag ku kasbadaan sida kanaalo wax isku darsaday oo midoobay iyo wixii la mid ah. Haddaba aan isla aragno 10 qof ee dakhliga ugu badan ka helay YouTube sanadka 2021. Kaalin tobnaad waxaa ku jira Preston Armstrong. Wuxuu si joogto ah u soo galaa liiskan wuxuuna helay qiyaastii lacag dhan $16 milyan. Waxyar ayuu hoos uga dhacay sanadkii hore markii uu helay ama uu galay kaalinta 6aad. Kaalin sagaalaad waxaa ku jira Logan Paul, feeriyahanka muranka badan dhaliyay iyo vlogger-kan ayaa kaalinta 10aad ku dhameystay sanadkii 2017, balse haatan wuxuu galay kaalinta 9aad waxa uu helay $18 milyan. Kaalinta 8aad waxaa galay Jody Perfect, majaajilistaan iyo kooxdiisa ayaa kaalinta 3aad ka galay liiska sanadka 2020. Waxay heleen $20 milyan sanadkii hore. Kaalinta 7aad waxaa ku dhameystay Ryan Kaji, 10 jirka caanka ah soo bandhigid qalabka boombilada ee ciyaalku ciyaaraan ayaa booska 7aad ku dhameystay 2021, wuxuuna helay lacag gaaraysa $27 milyan. Kaalinta 6aad waxaa ku jira Nastya oo waa 7 jir Ruushiyaan ah. Waxay barteeda YouTube ku leedahay dad gaaraya 90 milyan oo qof, dakhligooduna wuxuu gaaray $28 milyan. Kaalinta 5aad waxaa ku dhameystay Unspeakable, waa ciyaaryahan waxa uuna markii ugu horeysay ka soo muuqday liiskan wuxuuna dakhligiisa gaaray $28.5 milyan. Kaalinta 4aad waxaa ku dhameystay Rhett and Link, waa laba saaxiib waxayna mar kale kaalinta 4aad ku dhameysteen sanadkan 2021 waxayna heleen $30 milyan. Kaalin 6aad waxaa ku dhameystay Mark Kibrier. Waxa uu isticmaalay xirfadiisa ganacsi si uu u sameeyo astaan ganacsi oo guul leh isagoo helay $38 milyan sanadkii hore. Kaalinta 2aad waxaa ku dhameystay Jack Paul. Waxa uu dib ugu soo laabtay 10 sare. Dagaaladiisii caanka ahaa ee kula jiray xidigaha UFC ayaa ka caawiyay inuu helo $45 milyan. Kaalinta 1aad waxaa ku dhameystay MrBeast. Daawashadiisa 10 bilyan ah oo ay weheliso shirkadda Beast Burger franchise ayaa ka dhigtay Jimmy oo ku magac dheer MrBeast inuu ku dhawaad laba jibaaray dakhligiisa 2021 kadib markii uu kaalinta 2aad ka galay liiskan sanadkii hore. Haatan wuxuu helay $54 milyan. Guud ahaan YouTube-ka ayaa ah aalad aad u sii koraysa sanadahan dambe oo dadka dhalinyarada u badan ay ku soo bandhigaan hal abuuradooda gaarka ah si loo daawado oo ay lacag uga sameeyaan, inkastoo siyaabooyin kale oo kala duwan loo isticmaali karo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.